markaan kula hadlaya waxaan ku suganahay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho waxaana soo adeegatay diyaaradda Turkish Airlines oo rakaabka saaran qayb ay ka yihiin Soomaaliyeed oo maxbuus ku ahaa dalka Liibiya oo iyagu taariikhiyada xasuulinayeen in ay tagaan qaaradda Yurub waxaana loo sheegay oo ilaa aan la kulmay inoo sheegeen in ay jiraan dadka dib loo soo celiyay dadka tagay deegaanada Somaliland oo iyagu wax ka badan ama ku dhawaad $20,000 lagu bixiyay si ay u tagaan dalka wadamo kamid ah qaaradda Yurub laakiin ay soo gelin iminka waxa ii muuqanaya gudoomiyaha hay'adda qaranka madaxda oo kamid ahaa oo ku bixiyay wasaaradda amniga Soomaaliya xubno ka socday ii muuqa waxa kaloo ii muuqa wasiirka haweenka iyo walaalaha Soomaaliya oo iyaduna halkan joogta markaan dowladda federaalka Soomaaliya intan ayaana la filayaa in uu ku horeeyo xildhibaano ayaa sidoo kale goobta jooga isla u ah dadkaasi Soomaaliyeed ee 14 ruux gaaraya waana isku daygii labaad ee xukuumadda Soomaaliya ay ku soo dayso sida dawladdu sheegtay dad maxaabiis oo lagu haysto dalka Liibiya dawladda Soomaaliya oo hadashay waxa ay sheegtay goortii horeysay inay ku dadaalayso si kasta oo lagu hanan karo in dadka Soomaaliyeed ee dibadaha ku xiran dalkooda dib loogu soo celiyo waxaana loo sheegay oo waraysi aan sameynay aan ku ogaanay in qaar ka mid ah dadka la soo celinayo ay iyagu qaarkood diideenba in dalka la keeno sidaa daraadeedna qanaacad ay u arkaanba in ay sii joogaan dalka Liibiya oo maxbuus ay ku yihiin waxaana sidoo kale dawladda Soomaaliya ay sheegtay in dadaalka lagu bixinayo in dadkaasi la soo daayo iminka waan kula hadlayo ayaa waxaa naloo sheegay garoonka qayb ka mid inagoo joogna in si guud iyo si gaar ahaaneedba marka la yidhaahdo xaaladdu waa sidaas garoonkana intaas ayaa ka soconaysa